السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تضبي الله باتن حفلدود ونوعا وكلا ayaa kooxda xidigaha geesku intii ay jirtay aad isku timaadeen ama isku aragteen ama isku maqasheen xafladani waa mid kamid ah xafladahaasi sida darteed qaybaha kala duwan ee bulshada dadka ku xiran xidigaha geeska dunida meel kasto ay ka joogaan waxa leeyahay waa salaamantiin waxaan u mahadcelinayaa bahda warbaahinta oo telefishinka Home Cable TV, Royal TV, Astan TV iyo RTN TV oo barnaamijkan si toos ah uga bixi doono waxa laga yaabaa muddooyinkaasi aan idin soo horjoognay in kooxda xidigaha geeska ka ahaa gudoomiye balse caawameehi gudoomiyaha kooxda xidigaha geeska Maxamed Axmed Bakaal ayaa maamulka xidigaha geeska wada gudoomiye ku-xigeenku waxa weeyaan Mustafa Salebaan xogayu haween Cabdiraxmaan Oday in systemka xidigaha geesku iga dambeeyo oo ay jiraan waano xubina ama gudida kamida aan ka shaqeeyo wada jirkooda waxaan filayaa in dhinac kale laga sii aniga iga tahay intii xidigaha geeska aan ka ahaa gudoomiyaha waxaan ka bartay in xumaanta aan xumaan lagu sixin balse wanaaga xumaan lagu saxo waxa kale oo ka bartay tanaasulaadka iyo dulqaadku inay yihiin waxa kaliya ee suuragal ka dhigi kara in dad kala duwan la isku hayn karo waxaan ka bartay in wax la dhageysto waxaan ka bartay in mushkiladaha iyo carqaladaha la aqbalaa ay tahay waxa kaliya ee suuragal ka dhigi kara inay hirgasho waxa doonaysaa inta markaan ka imaado magaca iyo caanimada iyo mansabka iyo madaxnimadu qofka ma bedelaan kaliya ta waxay soo saaraan shakhsiyadiisa dhabta ah ama qofnimadiisa maxay tahay qofnimadu oo maxay si halbeega dhabta ah lagu cabiraa ma dharka iyo xaragada ma codka wanaagsan iyo ereyada la sameeyaa xilka iyo mansabka مدعده ما قروحده مايا انت midna maaha waa isku goynta sifooyinka rabbaaniga ah ee uu kamid yahay xishoodku iimaanku kamid yahay akhlaaqdu kamid tahay marka dhinaca si scientific loo eegana waxa weey fikir maskaxeedka inta soo dhan marka la isku geeyo qofnimadu iyada magaca samaysa kalsoonida dadka aad ku dhexleedahay iyada abuurta iyada aaminaada suuragal ka dhigta maxaa lagu ilaalin karaa maxaa laga ilaalin karaa waxa lagu ilaaliyaa dhowrsanaan iyo isku kalsooni waxaana laga ilaaliyaa waxyaabaha dila oo ay kamid tahay ballan darradu cabashadu fuleynimadu bakhaylnimadu iminka markaynu bakhayl ka hadlano dadka Soomaaliyeed waxa qofka bakhaylka qofka gacanta adag leh bakhayl u yaqaan bakhaylnimada dhabta ah ee halista badan waa qofku inuu qofka kale walaalkii waxa uu yahay qiri waayo nin maalin meel ka orday ayaa la oranayaa fulinimadu waa inaad ku dhiiran weydo xaqa iyo runta sheegisteeda waxaad u midaysantiin markaan xidigaha geeska u soo noqdo waa hibadiina faneed waxaanad ka midaysantiin muujinta awoodiina oo ah waxa idin ka hadhaya inuu yahay dhaxalka kaliyaate dadka uga tagaysaan dhaxalkaasi waa in wanaagsanaada qofka Soomaaliga ah ee fanaanka ah 70 sanadood oo kasta ha heesee waxa laga yaabaa in marka dambe uu xaalado aan wanaagsanayn ku gabagaboobo fursado taa aad ku bedeshaan oo aan noloshiina ku saxdaan baad haysataan waayo cimrigiinii baa kooban waqtiguna waa hadiyadaha Ilaahay bixiyo waxa laga yaabaa qofka inaan dareenkaagu wada dadka wada raali gelin oo kala jeclaato laakiin waxa muhiim ah in ficilkaagu uu dhamaantood raali geliyo kooxda xidigaha geeska Yurub Maxamed Cabdi oo ku soo noqotay waan u mahadnaqayaa waan salaamayaa Maxamed Axmed Bakaal ayaan ku soo dhaweynayaa
walaashay Sagal Mustafa Xasan Nuur iyo walaashay Eglan Show ayaan adigu mahadnaqaya waxaan salaamayaa cidda ugu mudan in la salaamo oo ah hooyaday Cibaado Maxamed Nuur Faahiye Liibaan Xildiid iyo labadayda wiil iyo xaaskayga iyo asxaabtayda kala duwan ee hor fadhida iyo kuwa shaashadaha iga daawanaya dunida dacaladeeda meel kasta ka joogaan waxaan idin leeyahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh الرحمن الرحيم horta abwaankaygii uu iga siyaasiin yahay horta uu iga aftahansan yahay marka koowaad horta waxa la yiraahdaa awrka hore awrka dambe socodkiisu awrka hore socodkiisu leeyahay xasan Saleebaan Dhuxul muddo badan buu kooxda soo maamulayay waxaan ay fanaankiisii waxay muujinaysaa in xidigaha geesku yar iyo weynba ay isku hibeeyaan ruuxda nafta iyo maalkaba waxaan uga mahad celinayaa macalinkaygii oo maanta isna kamid ah inaan gudoomiye u noqdo oo ogolaaday oo igu booriyay sharaf bay noo tahay dhamaanteeba hal mid baan idin sheegayaa mar walba xidigaha geesku meel kasta joogaanba waa mid maanta ay tahay sanadka cusub waxaan dadweynaha ku xidhan indhaha iyo dhagaha xidigaha geeska aan u sheegayaa in xidigaha geesku ay halkoodii hore uga sii wadi doonaan waxay uga barteen waxaan u mahadnaqayaa TV-yada Home Cable TV RTN TV Astaan TV iyo Horyaal TV oo nagal qayb qaadanaya barnaamijkan iyo farsamo yaqaanada xidigaha geeska oo marnaba hilmaami karin ma sha Allah iyo kooxdayda waxa caawin la jooga Sagal Mustafa iyo Eglan Show iyagana aad baan ugu mahadnaqayaa sida quruxda badan ee barnaamijka uga soo qayb galeen ma sha Allah horto waxaan leeyahay sanad cusub oo wanaagsan dhammaan ummadda muslimiinta iyo ummadda Soomaaliyeedba waan salaamaynaa dhamaantii anaga isku tuuba barnaamijkana waxaan soo qabnaa insha Allah